Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaasha ku xiran channelkeena Tiktoreyso Chiyaa kusoo dhawaada mawduuceena maanta waxaan ka hadlaynaa sababaha haweenka caqliga leh aysan ragga uga dhigan halbowlaha noloshooda. Haweenka caqliga leh waxay ogyihiin in ay ku qasban yihiin in ay dhib kasta ay maraan si ay u guulgaaraan noloshooda. Haweenkaasi waxa ay sameeyaan wax kasta oo nafhur ah si ay ugu guuleystaan ama u guulgaaraan qorshahooda nolosha. Marnaba ragga kuma haleeyaan farxadooda iyo noloshooda. Waa kuwan 3 sababood oo haweenka caqliyeenta ah aysan ragga uga dhigan halbowlaha nolosha. 1. Way isqiimeeyaan. Haweenka caqliga leh waa kuwa naftooda qiimeeya, waxayna qiimeeyaan dhan kasta noloshooda. Haweenkaas caqliyeenta ah waa kuwa og waxay rabaan, waana kuwa markasta diiradda saara si ay ugu guuleystaan qorshahooda. 2. Waxay ogyihiin in raggu aysan dhan waliba u fiicnayn ama cilad ay leeyihiin. Raggu waxay noqon karaan niyad jab. Haweenka caqliyeenta ah waxay ogyihiin in ay ka qomameyn doonaan haddii ay isku haleeyaan dadka kale. Haweenka waa kuwa isbedel ku sameeya noloshooda intii ay ragga isku haleyn lahaayeen. Waxay ku dadaalaan in ay wax qabsadaan oo ay noloshooda hagaajiyaan. 3. Waxay leeyihiin riyooyin waaweyn oo ay rabaan in ay ku guulgaaraan. Haweenka caqliga u saaxiibka ah waa kuwa riyooyinka leh. Waxay ogyihiin in guulahooda ay ku xiran yihiin dadaalkooda iyo go'aan qaadashadooda. Haweenkaas waa kuwa markasta ku dadaala horumarinta naftooda. Waxay inta badan isku hagaajiyaan dadaalkooda waxyaabaha ugu muhiimsan noloshooda, iskumana haleeyaan raggooda.